دكان وأفري قمرنا ويقضى ديني لا لو قضى سيد كنا لو قضى قمبي قدل شيء بين واي أنا الدكان على هاشم بقول دولار لي صدري وحبا أنا كوجين أنا marada dhacay lacagta lagu shubtay lacagteedu isiin diiday mobil weyn u haystaa ka qaat habeenka dambe adoo ku haysto 1200 bay iga qaadatay dahab bay kala baxday dahabkan gadanay ma bii xirnaa keenana bil masaakiin qarsanay lacagtii baan asaga laga dhacay markaa raggan iyo haweenka eedeysanayaasha ah ayaa xiriiray qaarkood guur gaare lahaa taasoo ka dhigan inay yihiin lamaana burcad ah 6 rag ah 3 kamidna maqanayaal ay yihiin waa fuliyaasha tuuganimada ama khiyaanada iskana dhigaya shirkadaha adeega maaliyadeed balse shacabka turuufeenaya $1319 ayaa jeebkooda soo gashay si aan dhib badan loo marin iyadoo kaliya la matelay maareeyaasha shirkadda adeega goolis dhinaca kalena mid ayaa maqana ah 5 haweeney la adeegsaday akoonadooda laguna keediyay lacago si raadraaca loo baabi'iyo loona mara habaabiyo laamaha amniga iyagoona lacagta u soo bedelayay cash dollar 16 bishii 9 2025 ayuu dhacay shirkii shirqoolka iyo qorshaha lagu dhacayay dhibane Axmed Deeq Siciid Warsame oo gaalkacyo jooga wax aqoon ahna aan loo lahayn kuna yimid wicitaanka burcadda ee ku nasiibso garwadeenka shirka Jaamac Cabdullaahi Maxamuud oo fadhigan maqana ka ayaa soo hindisay qorshahan abqarigiisana ahaa halka ay xaadir ahaayeen Maxamuud Cabdi Cilmi Dhagow Shariif Umar Geedi محمد عبد الرحمن أحمد عاطو وعتانكي دعا أيالا ديري إيادو لما تلايو شركة جوليس محمود عبد علمي دقو أيانا قاتي دور كمتلك ما دام أوآد قرانيو لهجة رير مدوغا ديغان كانوا كسو جيدو محاد أحمري إساقا إيادي باني أحمد ديق سعيد ورسمي أحمد ديق هاي سيوح أو بعين محانا كامغل سيوح لغايقات محال قوشي mudane gudoomiye sida wax la iga dhacay baan rabaa faahfaahin dheer inaan ka bixiyo meel fog bay ka soo bilaabataa meel halkan doolay ka timaada halkan ay timaada awalan anoo hadalka soo koobay anigu waxaan ku dhashay gobolka Doolo degmada Wardheer ku dhaad yaan ku dhashay deganahay dadkaas Soomaalida halka ku bari ma kamid taariikhdu markay ahayd 2025 bishii 9 tobankeedii ama 9keedii taqriiban baan safray gobolka Mudug baan aaday isla taariikhda 10keedii adigu xilligaas aan tagay gaalkacyo waxaan degay hotel la yiraahdo Golis oo meesha ku yaalaan degay isla taariikhda iyada hore ka xusay markay ahayd 16kii oo bishii 9aada abaara 9kii iyo badhkii markay ahayd ama 3 iyo badhka sida kulba loo yaqaan yaa la soo wacay telefonkii markii la soo wacay waan qabtay ninbaa iga qabtay oo ila hadlay Axmed Deeq Warsame Soomatiid buu yiri waxaan ninkaasaan ahay waxaan nahay shirkadii Goolis maadaama aan shirkadii nahay laftan aan kala hadlayno macluumaadkeeda khaldan inaan ku saxno oo wax ka dhiman iyo wax lagu daraba saxitaan aan kugu sameynaa rabnaa diyaar garow buu igu yiri mudane gudoomiye arinta iyada Soomaalidu si badan bay isu dhacdaa laakiin arinta iyada ee noocaasa anigu ma aqoonin nidaamka saasu meeshan joogayna kama jirin digtooni iyo wax ma taqaana maaragtay hawsha aan ka ogaanay ma jirin qaabka wax loo dhaco waan warwareegay xogaa baan warwareegay ninki waan shaki baa igu dhacay muddo ka bacdi ninkii ila hadlay markaan xoogaa ma garanaysaa aan wixii fahmi waayay qaabka wax u wada garan waayay buu nin kale u dhiibay yiri waxa ila jooga gudoomiyihii shirkadda la hadal nin aan ninkii ahayn baa ila hadlay war gudoomiyihii baan ahay buu yiri shirkadda Golis gudoomiyaheedii baan ahay niyo adaan wax ku hagaajinaynaa numberka si aan kuugu hagaajino oo waxyaalaha ka khaldan aan kuugu saxno macluumaadka aan kuu sheegi doono raac anigii gudoomiye waxaa jira isla bisha 12keeda ama 13keedii shirkadda waan tagay موبيل لفا ayaan ula tagay way ii balbalaariyeen shaqana dhex martay saasaan shirkad xiriir horan iyo noo dhex maray maadaama shirkadu ay ii shaqeeyeen waxa kula hadlayeen shirkadii uu yahay aniga qulubteeda waxa ku dhacday sixitaan oo adiga un baa lagu saxahayaa nimankana
ma garanaysaa dad haddii xagga nin iska fiirinaya maanan ahayn sidaa darteed markuu guddoomiye sheegtay shirkadiina taleefankeedii ama lafteedii waxa la iga soo wacayay aan ku hagaajina leeyahay shirkadiina 2 maalmood ama maalin ka hor aan u tagay oo wax ii soo hagaajiyeen waxa qulubteeda ku dhacday haddii shirkadii wax ku saxaysa sidaa darteed baan macluumaadkii ay uu lahaa aan ku saxnay macluumaadka raac yaan raacay Soomaalida waxay ku mahmaadaa tuug beel dagan ma waayo beel dagan tuug ma waayo Soomaalida ku mahmaad dagnaanta sidaas buu igu helay lacagti saasa la igaga shubtay macluumaadkii uu gali yiri waxa gali in moodahay anigu inuu wax igu hagaajinaya waxay ahayd lacagteedii oo la dhacayo ama la xadayo ana marka dareenkaas isugu jirin isagoo wali si wixii ku sii dhex jiraan taleefankii jiray ana jiray salaadii subax baa la gaadhay marka 9 iyo badhkii baa markuu soo wacayay salaadii subax baa la gaadhay in lay dhacay baan ogaaday waan tukaday waxaan tagay shirkadii markii qorraxdu soo roortay ma shirkadii Golison igaba fogeyn baan waxaan saas ay ugu dhacday shirkadii waxay yiraahdeen numberkan ku soo wacay waa Hormuud numberada lacagta lagaaga shubtayna waa Samneed si fiican bay markaa yeeleen daabacad bay ii sameeyeen numberada meesha ku dhaceen numberada dhacay lacagta lagu shubtay ka soo wacay bay daabacad ku sameeyeen aad bay dhahay Hormuud baan u tagay Hormuud waxay yiraahdeen maadaama oo numberkan ku soo wacay mooyee numberada waxa lagu shubtay Samneed ay yihiin qolada Samneed oo ka soo horjeeda ayaga aad si ay arintaada wax uga qabtaan qolada Samneed baan u tagay numberada hadii anaga ale laakiin anagu hadda fursad uma haynay dhahan inaan ma garanaysaa arintaas aan wax ka qabanno ana kama qaban karo waxaan idhi hadaba hadii wax ka qaban karin noo xayira lacagtan si macnaha la isugu soo gaaro lacagtan noo xayira ma ina suruubi Hormuud baan ku noqonay Hormuud waxay dhahan lacagtan xamar baa laga dhacay dadkii dhacayna xamar bay jiraan halkana wax lagama qaban karo waxaan idin kula talinaynaa tala bixin idin ku siinaynaa inaad xamar aadaan isla 16 bishii 9aad baan diyaaradii soo fuulay iftiina dheer baan halkan imid 17 markay bisho ahayd ama 18 baan macluumaadkii ay ii soo qoreen shirkadda Golis baa waxaan ku wareejiyay ciidanka booliska CID halka markay soo gaadhay wixii macluumaad waxa aniga iiga wakiil baadhaha iyo xeer ilaalinta baadhaha iiga wakiil oo og anigu wax macnaha la ii sheegay mooyaane baadhistii baadhaha gacanta ku hayay meeshay wax maray isaga og السلام عليكم ورحمة الله markii uu gudoomiyaha ku sheegtay qofka oo gudoomiyaha aha ku dhaxay kadib lacagtan ay fariimaha muxuu ku sheegay maxaa guda gasheen maxaa qabanaysiin marka waxaan guda galeynay lambarka gal si halka gal lambarka garaac ka ku dhufo ka gal lambaro ii soo yeedinaya lambaradii markaan yeediyo hadee dibban ilaa wax ka ogaaday anigu waxaan isleeyahay waxba ku saxaya marka wixii fariinta soo dhacda u yeerinaysa miya fariintii soo dhacda lambaro kala bedbedelan ilaa dibba wax ka ogaaday ayaa lacagta lagu shubhaya lambaro kala bedelan oo kala nooc markii mid lagu shuba hadana ka gal bay ahayd arintu ana waxaas oo dhan waxay ila tahay in la ii hagaajinayo systemkii iga khaldanaa oo shirkadii Golis ay shaqada ay hayso baan u qabaa kadib waxaan ogaaday dibban wixii u fiiriyay hadhaagaygii baan fiiriyay markii aan jaray ka bacdi lacagtii iga maqnayd baan arkay lacagta igu jirtay waxay ahayd adigu taqriiban 12 bay ahayd 10,319 dollar bay igala baxeen saasaan ku ogaaday in markaa dhacu halka uu ka yimid markaas adiga gaalkacya joogtaa miya gaalkacyaan jooga waxaan joogaa hoteelka Golis la yiraahdo ee Puntland qayb Puntland adiga gaalkacya deegaan kuma tii wardheer gobolka Doolaan ka imid baan ku dhaw waxaan joogay 6 habeen ama 7 habeen kilinka jirtaa kilinka gobolka wardheer Doolo
xisaabtii $1319 waa soo xarootay waana la maray dhibanaha haddaba sidee loo qaybsaday applicationka waafi aa wax ku dhacdeen lacag $10,319 la haystaa kooxdiin waa gartay eedaasi ma gashay mise ma gelin dada ka qabtaa see wax u jiraan midana gudoomiye lacagtu waa jirtaa waa dhacnay see u jirtaa macnaha see lacagta waa dhacnay 4 nin baan ku ahayn aniga iyo labada nin oo hadda ila fadhida iyo jaamac oo maqnaa lacagtana jaamac waa dhacay oo ninka ka qaaday annaguna dhalinyaradii la socotay oo markii samneedada u waday baan ahayn ma garat lafihii wax lagu dhacay markaa waxa aysan wadin deewaanu qaybsanay midna gudoomiye dambiguna qofku bilaadanka waa galay ilaahay waa maqal dabaa Soomaa haddana de anigu 2800 baan lacagta ka qabaa inaan xaq baxaan diyaar u ahay waka midna gudoomiye marka hore see u qaadisiin macnaha qaabkee lacagta see looga qaado qofka inaan kamay horta laba khasbin oo de jaamac horta filinka wato de lacagta ninka noo leeyimid ma garat anagu de niman reer baadiya baan anu magacayga horta ma qormaan akhriyo ma garat haday tiraahdo hadda inaan dhago halkaas soo istaag magacaaga qor wali bilay ka tahay baan qori aqoon aye jaamac filinka noo leeyimid lacagta jaamac baa u galay ninka wuxuu yiri hay'ad baan ahay ma garat lacag baan ku hayaa asaguna de lacag buu naga raadinayay oo de lacag baan ku haynaa baan ku lacag buu naga raadinayay oo lacagta laga qaadan ma idinka lacag ka raadinay de lacag baan ku haynaa baan ku hay'ad baan ahay 390 markaasna wuxuu yiri waa saxantiin 390 lacagtaas naga raadinay 390 naga raadinay lacagtii baan asaga laga dhacay marka soo ku aamina qof misruf fadhiin markaas dhaysan ismaana hor fadhiin telefoon baan iskala hadlay aye de waxa qoran baan ninkana ma naaqisbi waxa leedin hay'adan nahmiya hay'ad baan ahay baan ku galnay jaamac baa waxay hay'ad baan ahay baan ku galay yiri lacagtana asaa ka qaaday hay'adda maxay ahayd marka maxaa lagu sheegay qofka hay'adda noocaas WFP baan ahay hay'adaha caawimaadka lacag baan ku hayaa ku soo mu weydiiyay intee soo gashan madaxa lacagta ma u diidin uu yeelay amarka ilaahay in lacagta laga qaadaa idmanay qaabkee mobilkaaga lacagta soo gashay aniga mobilkii lacagta jaamac horta ninka la hadlayay ma garat waan la istaagay duu naga qarsanay anaga Soomaa habkiisa in la ogaado diidayay moogta inaan wax la ogaanay wuxuu diidayay markaan magaalada u baxnay waxa inaan macnaha isticmaalna habkiisa ma garat noo niman la yiraahdo la socdaan ahayn ma garat tisaas lacagta ku qaaday kadibna wuu noo qaybiyay aniguna de waxaan ka qabaa lacagta waa iska bixinayaa in adeer meeqa ka qabtaa 2000 waxaan ka qabaa 800 2,800 ka qabtaa lafta isticmaalaysa ma samneed isticmaalaysa ba isticmaalay marka application-ka waxa lagu dhacay miya application waafi iduu tilmid bay waafi ku dhacay meeqa ragaa kulli xiran laba joogto ma laba joogto laba waa cunay lacagta midna 2500 midna 2500 adigana 2800 jaamac oo lacagta keenay 2500 oo maxaa ugu badsatay adiga jaamac waa samneedaan hay'ad garanaysaa 300 ku ilaaway lacagta badnayd ma ogtahay in lacagtaan u kala diray marka 300 bi ilaaw markuu ilaawanaana waa cuna gabdhahan intee ka soo galeen gabdhaha laba gabdhood horta goobta waa joogay labada gabdhood laba gabdhood baa joogay markii qofka la turfeeyay ma joogeen de guri baan joognay laakiin de meeshan goobta lama fadhiyin laakiin guriga qayb ka mid qol ka mid ay joogay islaan horta anu mulka weys baan qabaa inanta la yiraahdo waa inanta maqan ma ogtahay wilka was xaaskaaga miya xaaskayga weeyo waa maqan tahay laba gabdhood halka fadhiyo hani iyo faadumo saddexda gabdhood baa joogay kaliya marka mulka maxaa loo dacweynaa maxay sameeyay mulka waxa loo dacweynaya xalaaliyaha waa soo waxaan ku weynanta anaa qaba dambigana anaa galay inaad furaha ka qaaday asaga diiday maxaa lacag ku dirtay miya mulki lacag baan u diray lacagta qayb faadumo lacagti adiga ku soo martaa id u dirtay miya ma ku biilis mise lacagti ku soo bixinaysa ma lacagta waa isticmaalina ama adigu ama ku biilaan wada qonne marka lacagta id way ogood ma marka turfeenayeen mulku meelay lama ogood qablu qol bay joogay gaaray joogay maxaa soo keen gabdhaha mulka adaa qaba gabdhaha kale yaa qaba gabdhaha galana de mulku bay joogay midna waxa qabaan wixii rag niman baa qabay gabdhaha waa labada gabdhood waa fadhiyaanba marka lacagta adiga aad turfeysay u dirtay miya gabadha marka anigu lacagta turfeeyay mulki baan ku diray lacagteeda waa la xanibaya lacagta ma aanan lahayn waa dhac soo maaha in lacagtii la barxaal rabaayo la habeeyo soo maaha mulki baan ku diray mulkina faadumo 500 ku dir oo meesha fadhido waa tiri 100 na qaado 400 na ii soo habee lacagta waa markaas waa la isku sheegaa miya in la soo lacag la soo turfeeyay taa way ogtahay way ogay faadumo saas loo dacwiyay marka marka xamdi faarax iyo gabadha garanayna ma joogin waa maqnaayeen goobta ma joogin labada gabdhood kale xamdi faarax gabadha la yiraahday iyo gabadha khatra la yiraahdo ma joogin hani iyo waxa joogay faadumo maxamuud cabdi cilmi dhagow ayaa lacagta ku soo aaday ku tuuray koontada xaaskiisa eedeysanaha 10aad mulki awees jeelaani oo maqana ah oo iyadana u sii gudbisay eedeysanaha 5aad faadumo cabdi xasan si raadka loo tiro jidkana loo dheereeyo faadumo haye dood waa maqlaysa maho
gudoomiye horta aniga ninkan soo sheegay horta aniga ma soo ogeenin qof gobol ka imaada ani bulburta ka imaada fahantay waxaan kiiskan iyo waxaan dhan ma ogeen aniga gabadho waa isla degneen gabadha oo habritay dhashay ee la degneed gabadho isku baranay meesha isku baranay gabadha habritay dhashay oo gurigeeda la iga aroosay isku baranay mulki ha okay marka waxay dhahday lacagtan aba cunuga iga xanuunsan ninkayga walaalkiis baa dibadda iga soo diray lacagtan ana akoon ma qabi akoonka akoon qabtid akoonka igu shubay dhahday caawinaya asxaanimo ugu shubay akoonka lacagtan meesha ka imaado in la soo dhacay in kala ma ogi walaa gudoomiyani wal soomiya ilaahay baa ii jeeday intaas ka soo gashan adii ina dhago aniga ma lacag igu ma shubin gurigaas loo joogi jiray macnaa oo naagta soo qaban jiray mulki bas iska naqaan in dhago ani lacagna ma dhaxmarin waa lacagta asku soo shubay ani la igu shubay la dhaxmariyay anna waa la igu qiyaano waxa maana ogeyn gudun gudoomiyo hadda qiraab lacag la soo dhacay ma qaban lahayn lacagta marka adiga maxaa kugu jiro faa'iido aniga faa'iido waxa igu ma jirin faa'iido waxay dhahday lacagtan iyahay dhahday akoon adaa qabtay aan cas u baahnin bil baa la siinayay in hadda kala tagnay oo isi ilmaadeen ay yihiin oo wax isku yihiin ay qabay oo askari asagana military ay qaba meesha sida bil qaana laakiin asxaan la ugu qabtaan ilaahay facal khayr u suubinayay bas dhibaatada ugu soo qashay lacagta aad hadda lacag mudana gudoomiye lacagta 400 mid kama 400 waa siiyo asiga waa og yahay waa u bixiyo doo ilaahay ka cabsana oo sheega 400 kaasha ugu bixiyay lacagta 500 soo bixi 100 ana lahaay bil ii ahayd 400 ayaga siiyo 100 kale oo 500 kan uu ku xayran yahay lafta ku xayran yahay waa haya oo laftiida hadda akoonkay uu ku xayran yahay marka 500 lagu soo diray adiga ha 500 dollar la soo diray oo waxba aan ka ogeyn ani waa iyahay la biso iyahay ugu imaado maxamed cabdiraxmaan caato ayaa isna xisaabtiisa u kala qeybiyey labada akoon xaaskiisii hore oo qaad ka iibisa hani mukhtaar maxamed oo hadda u dhaxda nin kale caato hay xaajidan ka waradna ninkan waa nala qaata lacagta see wax u dhacay horta marka hore sida uu sheegay ninkan lacagta ninkaas noola yimid waxa idin yimid jaamac waxba naga siiyey ani qayb iga siiyey ninkaana qayb ka siiyey ninkaana qayb ka siiyey afarteedaas qaybsanay yaa tiiri markii idinka maxaa isku doorateen maxaa ka wada shaqeyn jirteen saddexdana wada joognaa jaamac noo yimid soo soconay noo yimid adi ciidan ma taa ma shacab baan waa maxaa ciidan ku dhexgeliyay marka kala ragga kala ciidanka waa military labadan jaamacni waa military inta iska raacdeen marka ninkaas saaxiibnaano gurigiisa joogay maxamuud gurigiisa la joogay saasay nagu yimaad marka jaamacaas nagu yimid ninkaas noola yimid soo wata lacagtaas ninka ka qaaday loo qaybiya lacagta lagu qaaday maxaa la qaabtay tulufa loo qaaday waa fiican baa loo qaaday lacagta 2500 baan iga siiyay gabadhaasaan ku shubaan marka gabadha ku shubtay hani waan ku shubaa hani maxaa u taaday waa qabi jiray xaaskaaga hore waa marka hani mu sheegtay in lacag soo turfisata way ogeed bar bay qaadatay lacagta bari qaad kala bar bay qaadatay shariif waa ugaas lacagta waa qaat oo cunay 2500 buu qaat yoonis buu ku shubay inta lagu shubay shariif samneeda looga diray samneeda looga diray isaga iyo jaamac waa isku meel bay ku shubteen aad hadda meeqa kaaga maqan lacag 200 qayb kala aad gabadhaas qabta gabadhay hani waa qabta hani adiga inta ka soo gasho hawshan waxay iga soo gasheen ninkan waa isqabnay ninkaay maxamed caato 2025 aan kala tagnay degmada Daniel aan degnaanay qaadna waan gaday lacag markii aan kala tagayna waxaan ku lahaay oo $500 ilaa 400 oo micni meher ahaan ani aan ugu lahaay oo meher ahaan ugu leedahay ugu lahaay markii aan kala tagnay waa isqabsanay in badan markaan isqabsanay waxa ugu dhaawayday baa dhul gadanayso oo ku yaala xamar jajab oo dhaxal ay u leeyihiin dhulkaas markay gadato aan walaalay lacagtaada ka siinaya gabadha qaadkii ugu leed xataa way joogtaa lacagta 500 ay ugu leed gabadha xataa waxay tiri maadaama gabadhan kala tagtay lacagteeda shalay tir anaa ku siinaayo lacagtiin gabadhaada kugu leedahay lacagtii isii bayaan gobol ka imaado lacagna ma haystee hooyaday dhulkaas gadanaysa markay dhulka gadato baan lacagta iyada kugu soo diraya waxaa dhacday subax anoo iska hurdaayo xilliyada dambe in hal saac markaa soo kacay taleefankayga akoonka lacag ku arkay 2500 2400 lacagtan yaa iskala noo soo samneed lacagta ay ka imaadeen anoo lacagta xagee ka timid uu soo wacay kaas ugu dhaay hani lacag baa xal ku soo dirsaday hooyo dhulkii gadatay 900 oo 500 oo naagta qaadka ahayd iyo 400 iga gooso inta kale tan anaa ku soo wacay meesha igu soo dir ku dhaw igu soo dir saas aan lacagta u soo gashay meeqa ka qaatay adiga lacag ani 900 aan ka qaatay oo kala 400 meherkeedii waa ugu dhahay
ilaa 500 lacag qaad oo iiga cuna asaga inta kale asaga u diray asaga ku celis asaga u celiyaa lambar lambarka oo iga soo wac lambarka intaas igu soo diray ugu diray teed kale markii lacagtii uu qaatay aniga waa baxay gobol adeeyada xanuunsana aaday joohar 2 biri ma aqaan 3 biri ku maqnaay maalinkii soo bixi doon maalin ka horeysay uu soo wacay kaas oo ugu dhahaniyay waa li raadinaya maxay tahay maxaa lagu raadinaa maxaa haleesay kaas oo ugu dhahay lacagtii ku soo diray waan soo dhacnay kaas oo ka soo dhacay wuxuu ugu dhahay aniga Shariif jaamac indhago baa lacagta soo dhacnay hay xagee ka soo dhacdeen lacagta jaamac noo imaaday lacagta san soo dhacnayo على كل حال واللي رادينه يا هدي لو سو راديو كوما aqaani waligeyn kuma arkin markaasaan meesha joogta ka soo tagin oo ilaa joohar anu waxaan dhawaa soo baxa gabar yar oo ilmo agoon iyo agoon kuwa waxba dhaamin haysato waan shaqaystaa ilmeeyagana wax adii dhacdo ma la yacaayaan dhah sharcigan hadii la geeyo wixii aniga markaas mudankeeye oo ilaahay la ogyahan ka sheega waan imaanaha dhama sharci hal geeyo ama la geeynin waa imaanaha ani waxaan ahayn qaban maayaan sidii ay maaday maalintii aasas u imaaday maalin ku xigto waa la xiray asagoo ku jir CID do soo wacay wuxuu igu dhahay ani CID aan ku jiro waa xiranahay sawirkaadii aan la keenay xiralayaasha xataa waa weydiin ka dhaa sawirkaada la keenay waan ku inkiray ma aqaani yaraan agtan bidix midig meel aan u arkay malahan hadaa sheegid wixii kugu dhacada isku dhig qayaarka kale wixii saabax waa arkeenaa aniga wax aan ku inkiraay oo cado madow malahan dhaani waxna saamadhin si loo dhacay ma aqaani adiga hol wadaag joogtana dayni la joogo markuu wax dhacay hol wadaag dayni la deganaani asna hol wadaag lacag ku dhacay misoo gaarna dayni la deganaan dhaani wax saa ku soo dhacay adaa taqaan faan laakiin saani wuxuu ilaahay ila ogiyaan ka sheegaan dhahay lacagta adaa soo dhacday sida afkaada ay ka qiranaysid waa ku inkiraay leedahay aniga wixii ilaahay ila ogiyaan sheegaya ama inkir ama iska daa carruur ma isku dhasheen carruur isku ma dhalnaaniyasi meeqa isqabteen muddo adiga waxaa isqabnay oo sanad iyo xoogaa isqabnay aad waa kala tagteen miya mar horaan kala tagnay 2025 kala tagnay nin kale taa deertaan qab xaamilaha bis sagalaad ani way ii dhamaatay waa iska shaqaysanay gabar iska xaamil oo iska wili qaadkeyga ka taani Shariif Umar Geedi ayaa isna adeegsaday lambarada shirkadda isgaarsiinta Somned ee Xamdi Faarax Cali oo ah ganacsato dukaan deris uroonaha leh iyo Yunis Xuseen Cabdullaahi Guuleed madaxay bajaajle oo maqna ah lacagtaasna anigu wax aan ka ogahay oo ilaahay abuurta ma jiraan qof walba cilmiga ay leedahay isticmaasha laakiin anigu barnaamijka wax aan ku lug leeyahay oo isoo galay ama aan arkay ma jiraan sideeda dinbigaas anigu wax lug ah oo aan ku leeyahay ma jiro ninka maqlis waa maqlay laakiin waxaan hortaaganahay waa sharci qofka waxa loo baahan yahay 2500 Shariifa qaatay waxa loo baahan yahay 2500 meesha ugu siiyay lambarkii la igu shubay anigu waxaan leeyahay 3 laf oo hormuuda waxaan leeyahay Samtel haddii 25 sentio lacag akoonkayga lagu shubay ama laftayda lagu shubay lacagtaas way soo gashay haddii uu kaash igu siiyo 2500 oo kaash igu siiyana way hor fadhiyaa oo caday karaa meesha ugu siiyay inta soo laf inta wada adiga 4 laf inta gihi ma 3 laf aan ku iri 3 laf mid wiilaan siiyay labana ana isticmaalo iyo mid Samtel Soomaa ha iyo Samtel inta wada 4 qof 4 laf mid anagu ma isticmaalo wiilaan siiyay waa u sheegay xataa waa la iga qoray laba laf hormuud oo anagu isticmaalo iyo laf Samtel ah oo laftayda ku furan waa u qoran nimanka 25 sentio lacag haday ku keenan akoonkayga iyo laftayda waa la igu leeyahay hadii ninkaas meesha ugu siiyay 2500 cadeynteed oo keenana waa la igu leeyahay marka adiga lacagaha turfayso ma jirto wax aan turfay ma jiraan gabdhaha yaa ka taqaan gabdhaha anaga gabadhaas Xamdiyo dukaan kule aan dirisnahay aan wajihan aqaan wax kale oo naqan ma jiraan Xamdi ha haye adina gaariga inta ka raacday gaariga aniga ganacsada ahay gabadhaana 800 iigu soo tuurtay gabartee gabadhaan qatraa haye 8 markay igu soo tuurtay 6 way iga qaadat 100 lambar iigu tuuray dhahday 100 ana iidu ku lahay 800 ay soo martaan maxaa ka ganacsata adiga ani dukaan aan leeyahay dukaan aan leeyahay qatraa igu soo tuurtay wiil in adeerkeed leeyahay madaxay la leeyahay iska lahay lafta ayadaana ii keentay lambarkii inta u dambeysay macallin lafta macallin mobilka gacanta ku waday adiga marka lacagaha ma sariftaa macna ma ani dukaan aan lahay lafta ayada igu soo tuurtay waxay dhahday walaashii ay soo tuurtay ay dhahday saasay marka lafteedu ku dhacday ani akoon aan leeyahay lafteedu way balaarsan maxaa ka qaata lacagti oo faa'iido gaar ku ahayd lacag wax faa'iido oo igu jiro male ani wax faa'iido kugu jiro ma Qadro Maxamed Xasan ayaa iyadana loo soo wakiishay inay soo furto akoonada lagu helay lacagtan la soo dhacay
weliba koontooyinka xamdi xuseen faarax iyo guuleed madaxey khadro haye adiga sheekada inta kasoo gashay ani mudan gudoomiye sheekadan shalay galabtii lagu soo daray 10 saac haye kiis dhowr bilood socday waay gabadhan ani igu dhagan dambi been korkiisa saaroos gabartay xamdi lacagta waxaa iska la shariif oo aniga hadda ilaa ay turtay ma fahant 2500 oo shariif akoonkii oo Yunus ay ku dhacday akoonkii Yunus markay ku dhacday lafta shirkadda xirtay lacagta marka adiga ayadoo ku jirtaba 300 oo samlad laftiisa oo shariif uu leeyahay 300 oo ga turtay maahane 1400 ayadoo akoon ku jirto 800 EFC ku jirto ay lafta shirkadda xirtay ani shariif markii waa isdagaalsanay hadda ka hor inaan lacag qaad ku yeesho moobeel ka qaato isku dhacsanay misal hadleen gabadhaana ii imaatay waxay dhaaday ani wiil dimaashiga hormud ka shaqeeya marka waxay dhaaday dimaashiga lafta ma nooga furtid ana waxaan dhaaba kiiska waxaan hadhow dil isku qabsan maxaa sameynaa dhe wax isku qabsanay malaan lafta ii furay dhaaday gabar markii la joogto waxay dhaaday wiil hormud jooga ana aqaan ayada lambarkii waa la siiyay wiilka hormud jooga ana waa la siiyay lafta wiilka hormud jooga ayadu ka diiday inuu la hadlo qoraalada ay ku wada hadlaan wax dhan taan screenshot ka qaaday waa haayaan wiilka ayadu ka diiday inuu furo ana wuxuu dhahay lacag day ogashaa oo furaa u dhahay shariif buu ogaay ayada wiil ninkay kala tagana CID ka shaqeey uu ogyahay way wada joogan gurigeyga ay u imaadeen ninka 600 dollar lagu leeshiyo ayada afkeed ku leeshiyo marqaatiyaala buuxeen 600 ninka markay ku leeshiyo lafta wuu furay akoonkin waxa yireen ninka Markarimo EFC lagu soo kulkulama hormudu jooga salaam bag ma joogo ninka markuu lacagta qaat 500 waa loo diray lafteeda 500 ku soo tuurtay gabadhan lafteeda lambarka Yunus lacagta 100 macal 300 oo samleed ku jirtay ay 800 oo EFC ku jirtay 100 ma 100 kiiba lafteeda ku tuurtay lafteeda markay ku tuurtay kadib 500 oo wiilka hormud joogo loo diray in lambarkii ku soo dirtay ninka ana ayada ag fadhiya ninka u diray 500 ninka Yunus akoonkiis kala uu maqnaaday inuu jiro markaas beenka inuu soo sheego u diiday markuu imaado akoonka diila fiiriyo 1400 ku jirto way xayirantay midaad kale ninka salaam bank marka shaqeeyaa akoon inuu xiriyo inuu free mark kariyo hay waaye 500 soo daa wiilkan waxaan wali haystaan dadku way haystaan wuxuu yiraahday marka salaam bank taga soo waca diilina ganacsatayaal oo aan dhaana idinka damiinahay salaam bank yaa tagna khamiis aheed oo raxdan way dhaceysay ninkii akisto ay agajiiday marka akoonka sawirkiisa saarnaa meesha marka tagna xal akoonka maxkamada xirtay sabtiga imaado ana maxkamada xirtay marka la waa isgaabiyay gabadhan waxaan dhahay walaalahay ana maxkamadu waxay xirtay waxa sana shaqul ku leeyahay ma yiriisa kursadaan wax iga dambeeyaan lahayn sabtiga gabadhaas Faadima tagtay waa la xiray salaam bank waxaan dambi ku leeyahay ma lacagtaas waxaan ka cunay 500 ninka qaatay uu joogaa inta kan leedahay taleefkeeda ku jirtaa 500 400 akoonka ku xirtay 500 ninkaas uu qabo waa adi 500 ku dhaxmartay miyaa marka 500 ay dhaxmartay 500 ani dhaxmartay waxay dhoosa lafteeda wadatay marka waxa farsamo ka ahayd farsamayaqaan ka ahayd oo isku xiriisay ninka laftaas la soo furay bas la isku xiraay dambi la taas la dambi ku leeyahay wax been ma sheegan shalay bila xiraanta soo wacda waan u sheegay runta adiga shariif ma taqaan shariif maxaa aqaana marka maxaa ku taqaan muxuu ka shaqeeyaa maxaa isku dagaashay waa isdagaashanaatay lacag qaada ku lahaa lacag qaada ku leed adiga qaad wala taamiya lacagteedu isiin diiday moobeel weyn u haystaa ka qaata habeenka dambe adoo ku haysto lacagteedu sii dhooy moobeelkii hay lacagteedu oo keen lacagta ka maqnaa lacagta shariif adaba socotaa miyaa marka adiga marka ma aan lacagtiis ma daba soconin be aan la lacagta lagu dhacay taa ma ogeen soo shariif deyn kumli deynteedu waa ka qaatan moobeel aan ka qaadmo moobeel u qaatay intee moobeelkii aan ka qaat moobeelkiisa ka qaat moobeelku waasi marka dambe lacagteedu ii keen mar hore ka soo wareegtay soonkiis kale taas qamriya la gadaa maxaa ka wadaa ayada gado maxaa qamri maxaa laga wadaa qamriga oo daroogada lacabana gadaa ana qamri lacagtiisa ku gaday ugu dhaaday lacagtan lacag la soo dhacay waxaas dhan ma gadaal le ka ogaade mana ogeen sidoo ninkaas sheegay meesha maxay ka ganacsatay caadi muxuu ganacsatay gabadhaas kale dukaan waa ufriya qamrina way gadaa dayni la loogu gadaa siidkana waa loogu gadaa oo sheeg kale waxa la sheegayaa meesha adigina qamri gidda la sheegayaa been waaye ani dukaanaan leeyahay weyna yaqaanaan dadka i yaqaano dadkan hataa qaar la socdo way yaqaanaan inaani dukaan galo baranjiyada ku kala gadaal dhowr baranjiyada been waay cadeenan ku rabaa in lagu keeno jaamac Cabdullaahi Maxamuud maskaxdii soo curisay falkan oo maqanaha ayaa dhaxmaray maqana kale Saciid Gurey Xaayow oo isna darawal bajaaj ahaa noocyada lambarada la isticmaalay isku xirkooda iyo raadad kale oo shabakada dhaxmaray iyo xeeraali Cabdiraxmaan Cali Sheekh maxkamaddu waxaan rabnaa in nala fiiriso inta waxa ku qoran lambaradii oo somnetka ah lambaradii la soo jabsaday lacagta lagu soo qaaday lacagaha lambarada ee dhaxmareen lambarka koowaad labaad iyo saddexaad iyo afraad marka laga reebo lambarka koowaad kaliya ayaa leh aqoonsi ah
aqoonsi magac sax ah oo la xiriira eedeysanayaasha waxaa ku qoran habboon aadan ibraahim oo magaca uu isticmaalayay magaca labaad ahaan u isticmaalaysay halka lambarada labaad saddexaad iyo afraad lagu qoray magacyo aan jirin balse la xiriira lambaradii shirkadii laga soo qaatay qaybtan hoosena waxaa yaala sawirka ah lafihii goobta laga soo qaaday eedeysanayaasha maxkamadda waxaa rabnaa mar labaad inaa u sheego eedeysanayaasha markii lasoo qabanayay waxaa lala soo qabtay 6 taleefan iyo 19 simkaar goobta ay ku qayilayeen 19 simkaar 3 ka mid ah waxaa lagu sameeyey si aan loo tixraacin ayaa waxaa lagu sameeyey waa la bologareeyay qaybta lafta ka shaqeynaysa ayaa laga xoqay markii shirkadda lafta ahaan way shaqeynay laakiin markaad geliso ogaatay lambarka ku qoran wuxuu kuu sheegaa try again ku dhaa ilaa iyo lambaradan shirkadda ina u gudbiso maahane si kale ma ku ogaan kartid nidaamkaasaana raacnay lambarada ku qoran lafta ayaan shirkaddu la wadaagnay sidaas ayaan ku helnay lambar kastaba lafta uu leeyahay halkan waxaa ku qoran lambarka koowaad sida hore u soo sheegnay oo ah lambaradii somnetka ah lacagta lagu dhacay sababtoo ah lacag yar maahan mana ah wax hal mar laga soo koobi karo waxaan u kala saarnay lambarka koowaad ee somnetka ah oo u isticmaalayay maxamuud cabdi cilmi lacagihii uu dhacay oo lambaradaas oo ku wada shubtay oo sida uu sheegayna oo lacagta qayb ka mid ah oo u fududeysay faadumo oo sawirka ka muuqdo iyo Sacuud Guray oo maqana ah lacagihii ay dhaceen oo ah 2874 waxaa looga daba tagay akoonadooda ay isticmaalayeen lacag kaliya $9 ah oo muwaadinka ay ka dhaceen lacagtii laga dhacay waxaan ka helnay $9 halkan waxaa ka muuqdo oo ah lambarka labaad shirkadda lambarka labaad ee Somnet waxaa lacag ku dhacay asigana oo sidan maxkamadda oo ka hor qirtay maxamed cabdiraxmaan axmed ku magac dheer ina caato lacagtoo dhacayna waa 2479 lacagtoo axmed maxamed cabdiraxmaan lacagtoo dhacay wuxuu dhaxmarsaday si ahaan sida loogu dhaqo hani waxay isticmaashaa laba akoon labada akoon waa hani kaliya labada akoon waxa u kala qoran laba magac waana wuxuuna ka furan yahay hal shirkad oo salaam bangi ah waxaana u kala qoran laba magac kala duwan waana hal qofood waxa iska leh akoonadaas waxaana isticmaalay maxamed cabdiraxmaan cumar shariif marka loo fiiriyo tiimkan waa qofka labaad marka laga soo tag maxamuud cabdi cilmi sababtoo ah cumar shariif marna dhinaciisa asiga waxa ka dhacay marna waa la dhaxmarayo waxa si dhaxmarayo eedeysanaha maqan jaamac oo barnaamijkan keenay oo ah nin aad ugu xeel dheer lacagahan la dhaqaayo si uusan loo helin raad asiga ku saabsan ayuu saaxiibadiisa la soo wadaagay mid ka mid ah saaxiibadiisa ayuu isticmaalay waana shariif iyo lambarada ay sameysteen oo kor aan ku soo xusnay waa Sucaad Cali Salaad waa lambaradii la soo jabsaday ayay isticmaaleen iyo Jihaan iyo Maxamed Cabdullaahi Xaashi eegana lacagii laga helay waa $39 haraadika ah lacagii 10,000 oo muwaadinka laga dhacay jantuska afraad oo tilmaamaya isla shariifka ah waxa ku maqan asigana isla lambarada lacagta lagu dhacay ah 1499 wuxuuna isticmaaleen Shukri Saciid Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Xaashi oo mar labaad uu isticmaalay iyo lambarkiisa caadiga ah lambarada u soo goosteen ah Sucaad Cali Salaad waxyaabaha yaabka leh waxa kamid ah shariif markaa weydiinay in eedan loo soo jeedinayo iyo dhacahan tiimkan uu kala mid yahay wuxuu noo sheegay inuusan gelin wuxuuna noo sheegay lambaradiisa aqoonsiga ee dadka ay ku yaqaanaan markaa weydiinay wuxuu noo sheegay lambar bishii 7 2025 ugu dambeysay in la isticmaalo shariif bisha 7 2025 lacag in lagu diro ah intaasna shariif uu noolaay nin maalin walba qaylo oo goobaha jaadka aan laga weynin oo iyo goobaha la isku xifaaltamayo waxa kaliya uu isticmaalay lambarkaas oo sheegtay lambarkii oo fakadka ka ahay oo mushaarka uu ka heli jiray ayuu sheegay oo aan lacagna lagu isticmaalin inta kale magaalku ku jiray uu sheegay waa lambarkiisa kale oo qaaska u ahay jantuskan oo ah jantuska shanaad oo ah lambarada lacagihii lagu dhacay qaabka ee loogu kala qaatay waxa isticmaalin la yiraahdo Jaamac Cabdullaahi Maxamuud Jaamac
waa ninkii keenay barnaamijkan in dhibane Axmed Deeq la dhaco wuxuuna isticmaalay akoonkiisa ma isticmaalinay Yunis Xuseen Cabdullaahi ayuu akoon ahaan Salaam Bangi ayuu u isticmaalay Yunis lacagtaasna akoonkaas waxaa la marsiiyey oo lacagta Maxamed Deeq Axmed Deeq dhibanaha akoonkiisa lacagtii laga soo bixiyay Yunis akoonkaas waxaa dhex martay $1477 waxaan haraadi ka ah waxa laga hayaa $22 oo ah lacagta muwaadinka maskiinka ah ee laga dhacay maxkamadda waxaan halkan ku tusaynaa inay si fiican ula eegto waan jeclaan lahayn 6 moobeel iyagoo ah 4 qofood waxay moobeelada waxay u soo gateen u soo badsadeen in ay muwaadiniinta si u dhacaan ayuu nin walba wuxuu iska dhaadhicay nin walba ninka ka telefoon badan yahay oo telefoon badan uu ka haysto wuxuu heli karaa lacag badan sidaas oo ayuu ku xifaaltameen oo nin walba moobeel badan uu soo qaatay waana moobeeladii goobta laga helay waana moobeeladii ay ku jiraan hadda moobeelka dhinacan jiro wuxuu qaadaa 4 sim card waa dhamaantood waxa laga helay 19 sim card oo goobta yaalay marka qofka lacagta laga qaadanayo la wacay yaa idin sheegay magaciisa lambarkiisa idin sheegay lambarka hormuudka lagu eegaa hadda gool sida ku fiiriso magaca ku soo baxaya lambarka takeentay marka lambarka ku nasiibso way lambar la gelina markuu magaca aragto jaama ku nasiibsaday adiga gooliska takeentay gooliska ana askare oo marka la shaama qaatay inta ka soo qaatay gaalka ayaa ka qaataa marka telefoonka hawada laga saar leeyahay qaabkaas maxay tahay waa been waxaas telefoon hawada si loo saaro shirkad baan waa shirkad si loo saar kara wala lambarka kaarka meel laga xiro leeyahay meel laga furo leeyahay sidankiga meel laga xiro sidka gashaa ka xirtay maanta dam dood waa dhageysiismo gabdhaha warkood maqlis waa maqlay haye anu goor baan ku soo 2479 gabadhe hani akoonka mana qabay markaa nin baa qabay markaa iyada ma qabay guriga lacagta lagu dhacayna waa joogtay iyadii faadum waa joogay xaadir bay ahay 1200 bay qaadatay madini kugu lahayd ma igu malahay shil igu malahay dahab bay kala baxday lacagta laga qaatay $736 naag islaam bakaara joogtay oo dibay 400 walaasheed oo dirtay waa isla soconaanay ayuu kaamirada laga helayaa waxa deyn igu lahayd ma way la qaybsatay lacagta barbay qaad bay sakadin wax kale sakadin wax ay ka shaqeysan ma waxa soo kordhay adii lacagta kala bar qaat u dhaweeyay wax ka jira malaan wax aniga qaato kala bar ma jiraan cadeen aniga gabadhii 500 oo qaadka igu lahayd dilida maxkamadkeen waa keeni karaa dukaankii aan raashin ka qaadanayna markaan isqabnay cadeenteedii gabadhii ayadana iska lahayd jamaada lahaa xaafadda diganta ayadana kan hadii lagu dhaw waa keeni karaa meesha aan ku ganacsanay shacabkii joogay in aan qaad gad cadeenteeda saacada hadii gaari lagu qaado waa la soo ogaan karaa dahabi ku gato dhawaada dahabkan gadanay ma bii xirnaa keenana mid masaakiin qarsana deen lagu lahaa 900 gabadha xamada ku jirta adimi ani waay gabadha xamilada ani ilmo waxa haysta gabar agoon iyo kuwa kale in askari asagana oo dhalay oo aan waxba dhaamin askaga shaqaystaani adi banaan joog ma haydada banaanka laga wacay banaankan joogaa xamilahay xabsi kuma jirin xabsi kuma jirin bis sayalaad way dhamaatay banaanka laga wacay tamina ku joogay baraha galkan uga wakiilka CID booliiska Soomaaliyeed ayaa isna laga dhageystay wixii ka soo baxay natiijada baarista gabagabadii baaristeena mudane gudoomiye waxa inoo soo baxday in uu dhacay fal dambi ah kaas oo ah dhac iyo turufo ayna geysteen eedeysanayaasha 4 ah eedeysanayaasha 6 ahna ay ku gacan siiyeen 10kaas eedeysana ay geysteen falkaasi turufada ay dhaca gabagabadii baaristeena intaas ayaa noo soo baxday aan maasinta gudoomiye meeqa ka nool lacag kun iyo jabaa ka xayiran kun iyo xogaa kun xayiran inta kale gacantooda ku maqanta eedeysana faado markii la soo qabanayay shirkadda ama salaami joogto Soomaa markii la soo qabanayay warbixinta booliiska ay u sheegtay waxay ahayd markii la weydiiyay lacagtan meesha ay ka soo gashay waxay u sheegtay inay mulki lacagtan taleefankeeda ku jirto Soomaa sanada hay'adaha amniga waxay ku gacan siisay inay mulki iyo eedeysanayaasha kalaba meeshii ay joogaan ay ku caawiso inuu sheegto Soomaa ma jira xiriir ka dhaxeeyo shakhsiyan faadumo iyo eedeysanaha koowaad labaad iyo saddexaad iyo afraad maxkamadda faahfaahin u sheegay sida faadumo ku ogaad maadaama aad sheegtay inaysan goobta joogin inaan loo sheegin maxkamaddu u sheeg sida ku ogaatay mudane gudoomiye faadumo iyo mulki iyo maxamuud daris waaye hadda ka hor faadumo sidaas oo kala mulkiya lacag sidaas oo kala la soo dhacay
taleefankeedii soo dhex marsiisay waa laga xayiray shirkadda hormuud ah ka xirtay waxaana lahaa lacagtaas waa lasoo dhacay mar labaad lacagta xataa ayada markaa caddeynta ku qoraa way ii sheegtay lacagtan tirada badan intaa keenta dhahday ninkeyga meel ka keenay dibadda looga soo diray marka Faadumo way ogeed lacagtan hadda ka horna waa lagu qabtay sidoo kale haddana markaan kale sidoo kale way ogeed marka lacagtan in la soo dhacay Faadumo ma qiimeyntaada ama caddeyn kale u hayso oo ay waa ku sheegay caddeynta kale u haya hadda ka hor lacag sidaas kale la soo dhacay ayaa mulki soo dhex marsiisay marka maalin kasta jid may noqon qofka ma la dhex marsiina in koontadaada qof dariskaada ah oo aad ehel tihiin saa sheegtay oo dariskaada inuu lacag ku dhaho koontada igu shub lacag dembi ma aha Soomaa mudul guddoon waa faahfaahinaa meeshaas dembi ma ahan laakiin waxaa jirto inaa iska hubisid waxa koontada lagu shubayo meeshay ka imaadeen inaa iska ogaatida ka fiican habboon shariif wuxuu kuu sheegay in uusan wax turufayn ayuu kuu sheegay Soomaa ma helin wax caddayn ah oo sheegaya inuu turufo geystay oo aad heshay ma jirto Soomaa way jirtaa waayahay waa jirtaa ha tiri ka hirima ma heshay taleefanka kiisa taleefanka uu leeyahay ma baartay eedeysanaha saddexaad maxamed cabdiraxmaan akoon macnaha bangi uu ku leeyahay bunuugta ka mid ah intaa baaritaankaaga waday ma helin Soomaa may laakiin waa ku faahfaahina gudoomi maadaama dadkan taatikada iyo farsamada dad ku dhacayaan ay og yihiin in lacagahan laga daba tagaayo aday akoonadooda dhex marsiisaan lafo aan magacyo ku qorneen iyo akoonna ee lahayn isticmaalaan ee lacagaha ku shubtaan marka sidaas darteed magacooda way ka ilaalinayaan iyo akoon magacooda qoran yahay laf magacooda qoran way ka ilaalinayaan dad kale ama dukaamo wax uga iibsanayaan ama ishaag qof kale is yaqaaniin akoontadiisa isticmaalayaan numberkooda way ka ilaalinayaan dhaqdhaqaaq dhan $1 ugu yar lacagtiisa kamid oo ka ilaalinayaan maadaama akoonkiisa aadan helin dhibanaha labarkiisa iyo eedeysanaha saddexaad wax dhaqdhaqaaq lacageed oo dhex maray oo baaritaad aad ku soo ogaatay oo maxkamadda aad la wadaagi kartay ma jira Soomaa lacagta dhicisteeda oo ninka muwaadinka Soomaaliga laga dhacay farsamadan cidda keentay oo dhacan keenay inuu eedeysanaha maqanaha yahay Soomaa isagana ka qayb ahaan baa lacagti qayb looga soo gaaday maana technical ahaan uusan farsamada uusan aqoonin uu ku sheegay Soomaa uu ii sheegay technicalka inuu ku jiro ii sheegay waa maasanta sidoo kale baaristaada oo ku soo ogaatay Soomaa gabadha la dhaho Xamdi in ay leedahay dukaan sidoo kale baaristaada oo ku soo ogaatay hani in eedeysanayaasha mid kamid ah uu qabay ay kala tageen lacagna ay ku leeyahay meher way ku sheegtay Soomaa hani in ayagu qaad gado oo jaadleed way ku sheegtay Soomaahan jaadkaas inuu asagana ka deysan jiro ka qaadan jiray ay deyn ku lahayd si fiican maxkamaddu way maasan qadro ma jirto Soomaa cid dhibano u ah oo qadro lacag ka dhacda ama ay ka turfays ma jirto Soomaa way jirtaa cid gaar ah qadro dhibano u ah oo lacag ay ka dhacda ma jirto way jirtaa okay maxkamaddu faahfaahin lacagtii qayb kamid ah ee qadro qaadatay marka dhibano uu jiraa marka uu jooga dhibano uu taagan inta soo istaagay oo qadro lacag ka turfays dhibanaha kiiska dhibano u ah qadro ku-xigeenka xeeralyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe Axmed Iimaan ayaa maxkamadda ka codsaday in lagu xukumo eedeysanayaasha ciqaabta ugu adag ee ay dhigayaan qodobada eeda kiiskan uu iska cad yahay sababtoo ah waxaan soo bandhignay dhammaan cadeymankii dhaqdhaqaaqyadii telefoonada la isticmaalayay waxaan soo bandhignay lambaradii kalento oo akoonadii hormuudka haddaan dhahno xataa waxaan soo bandhignay lambaradii gooliska mudan guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh kiiskan waxaa loo geystay nin musaafir ah oo dhibano ah oo ku sugnaay kaalgacyo sababtoo ah gobol ay ka guureen gobol kale dhac ka soo geysteen eedeysanayaashan afartan ugu horeysa oo lagu kala magacaabo maxamuud cabdi cilmi iyo shariif cumar cabdi iyo maxamed cabdiraxmaan axmed iyo jaamac cabdulaahi maxamuud waa dad xirfadlayaal ah arrintan agaasimay sidii lagu wacay oo la leeyahay lambarkaas garaac maadaama shalay ama daraad uu tagay shirkadda lacagna ugu jirto 10,000 lacag ka badan ku jirtay laakiin markay mareysay $10,319 ayuu ku baraarugay oo markii dambe telefoonka jaray
mar labaaday ku celiyeen mar saddexaaday ku celiyeen marka dambe uu ka qabtay adaan kuu shaqaynaa shirkaddii aan nahay amarkeenna qaado kadib markaa subaxii waagii markuu baryay uu shirkaddii aaday wuxuu loo soo sheegay inay dadka dhacayba ay inta joogeen ay muqdisho joogaan baaris dheer la sameeyey juhdi la geliyey waxaan soo xirnay dad fara badan oo arrintan lagu eedeynayay hadda waxaa ku eedeysan kiiskan 11 qofood oo qaybna ah shabakadii dhaca geysatay qaybna ah qaybtii fududeysay sababtoo ah waxay isku jiraan Faadumo oo kale lacagta waa loo diray akoonkeeda iyadoo lacag fadhiya sababtoo la ogaan karo ama EVC loogu diri karo wixii la siinayo akoonkeeda lagu diray bajaaj ay qaadatay juhdi ku bixisay waxay aaday shirkadda Hormuud lacagtii laga rabay way siisay khidmadeedana meesha ku rabtay maalmo kadib inay isticmaashay ugu talgashay sidaas lagu soo qabtay hani oo kale waxaa loo diray lacag kulligeed habeen saqdhaxa habeenimo ayaa labadeeda akoon waxaa loogu kala tiray laba lacag oo kala duwan oo u diray ninka la yiraahdo maxamed cabdiraxmaan axmed sababtoo hore uu qabi jiray wuu yaqaanaa inay qaad gato waxaa kale oo jiro jaamac iyo ninka la yiraahdo shariif iyagana waa saaxiibo goon isku dhow waxay adeegsanayeen laba qofood oo bajaajley ah oo lagu kala magacaabo Yonis iyo Saciid Gurey labadaba waa bajaajlayaal marka horena ciidan ahaayeen kulli dhammaantood ciidankan wada baxsad waaye fadhiyadooda hadda kama shaqeeyaan arrimahan baa lagu heshiiyo dhacan in dadka masaakiinta ama dadka xogaa dagan in la dhaco maadaama aan soo bandhignay dhibanihiina aan horkeena u sheegay dhibkii loo geystay iyo saameynta uu ku leeyahay iyo inta bilood u xayrnay kiiska nimankan u geysteen dhibaatada maadaama musaafir ahay waxaan keenay lambaradii lagu shubtay waxaan keenay moobiladii oo mid walba lambar qof dumar ah ku qoran sababtoo ah qof walba lambarkiisa markaa weydiisid aniga telefoon ma wadin oo dhaha markaan baarnay oo juhdi sameynay waxaa kaloo markii la soo xiray gabadha la yiraahdo hani ayaa kiiskii noo furfurmay oo mobil walba iyo mobilka laga isticmaalayay ama qaadka u gadanayeen ay sheegtay lambarada markaa fiirsanay lambar walba Saudi Ilhaan iyo dad kale intii lambara aan safe gareysneen oo yaa ugu jirto sidaas daraadeed maadaama kiiskan juhdi badan ku bixinay iyagana qaraal ay yihiin waxaan maxkamadda ka codsanaa afarta eedeysane oo dhibka u geystay dhacana geystay kuna tashtay in lagu xukumo dhicii ay geysteen hani mukhtaar maxamed waa gabar uur ah 9 bilood ay tahay maadaama hadda ay uur leedahay laba qofood lama ciqaab karo maxkamadda ogaana ka gaartay inta kale tan waxaan maxkamadda ka codsanaynaa in lagu qaado qodobada aan ku soo eedeeno ah maran habaabin dambi iyo dhacaas iyo iska dhigis qof shakhsi oo Hormuud ama goolis ay iska soo dhigeen maxkamadda waa maasantay qareennada oo dhinacyo kala duwan ka taagnaa eedda xafiiska xilaalinta ayaa maxkamadda u jeediyey codsiga muwakkiliintooda abukaata u ah maxamuud cabdi cilmi dhagow si waafaqsan shayto leehtan xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay u akhrisay hay'adda xafiiska xilaalinta eedeeyay si waafaqsan 103 si waafaqsan 104 uu ku jawaabay eedda lagu eedeynayo ah 496 muwakkilkii qiraal buu yahay in turfa ay wax ku qaateen laakiin 283 iyo 383 labadaas qodob qiraal uma ahan eedda ay ku eedeynaya xafiiska xilaalinta oo ah fakashka oo goobtiisii shaqada ay ciidanada ay ka fakadeen eedda kuma jirto laakiin afhaan bay ugu dareen ayadana waa midaan ma hadan eedda aysan ku qorayn sidaasaan ugu gudbaya maxkamadduna inay ugu gudubtaan ka codsanayaa mudane gudoomiye muwakkilkaygu hay-adaha ma uu baarista ama uu maran habaabin maxkamadda qiraal buu ka bixiyey say wax u jireen buu u sheegay fadhiga hore baaristana wuu ku sheegay hadda maxkamadda horteedana say wax u jiraan buu u sheegay oo laafuraan ah maadaama si sax ah wixii jira u sheegay waxa xuquuq oo ku maqan inuu iska bixiyo uu sheegay maxkamadda horteeda uu ka sheegay waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa ciqaabka ka dhalanaya maadaama uu xiran yahay oo la soo xiray 25 bishii 9aad 2023 oo 9aad 10aad 11aad 12aad iyo 5 bilood wax uu xiran yahay
qodobka 495 ciqaabkii ka dhalan 496 ciqaabtii ka dhalan lahayd inay maxkamaddu inta ugu gaabiso maadaama xaq uu bixiyo diyaar u yahay ayadoo dabaqaysa qodobka 4aad xarafkiisa ga ayadoo maxkamaddu dabaqayso oo ah sifaalaha dambiga fududeeya maadaama uusan hay'adaha baaristii iyo maxkamaddii midna uusan wareerin si wax jiraan u sheegeen inay maxkamaddu ay u fududeyso xuquuqda xoolahan iska bixiyo ciqaabkiisana laga dhigay inta uu xiran yahay maadaama qodobku uu sheegay ciqaabku sheegay hal sano ay tahay inaan ka badan maxkamaddu aysan ay ku xukumin maxkamaddu ma maasanta mudana gudoomiye garsoorayaal Shariif Cumar Geedi haddii eediisi loo jeedshay 103 104 wuxuu ku jawaabiyay falka lagu eedeynayo in uusan gelin xafiiska xeer ilaalintu wax caddayn ah oo tusinaya Shariif inuu turufo geystay sooma bandhigin qofka waxa lagu aqoonsan karaa magaca uu leeyahay iyo magaca aabihiis dukumiinti wixii ugu qoran wuxuu leeyahay lafa ayuu leeyahay ama simkaaro magacyadiisa ayaa ugu qoran lama soo bandhigin hal caddayn oo taleefanadiisii in lacag lagu shubay lama soo bandhigin asaguna qiraal ma ahan eedaysanayaal sheegay Shariif inuu kooxda ka mid ahay ayaa jirta ansixi maayo eedaysana inuu eedaysana kaleentood ku markaati kaciyo sida ku cad qodobka 199 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed lacagtu taleefan ay ku jirtay warqad ma ahayn waa in taleefan kale lagu gudbiyaa taleefankiisa oo asigu uu leeyahay oo lacag lagu gudbiyana fara laguma hayo nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam low yucda annaasu dacwaahum la dacaa unaasun amwaala qawmin albayinatu cala almudaci mudaciga caamka ah waxaa laga rabay si aan shaki ku jirin sida ku cad qodobka 163 eedaysanuhu falka inuu galay caddayn inuu u keeno waana u keeni waayeen asaguna qiraal ma ahan taleefan uu leeyahay lacag marta fara laguma hayo wuxuu ku xiran yahay tuhun ayuu ku xiran yahay tuhunkii birigow dhammaaday oo biriga wax lagu jafaalsho oo inuu mataqaan wax dhib geystay wax xujo looga dhigo xafiisku waa soo bandhigi waaye gunti iyo gebageebadii mudana gudoomiye garsoorayaal maadaama qiraal uusan jirin maadaama caddayn aan lahayn maadaama in badan Shariif uu xiran yahay tuhno uu xiran yahay caddayna maxkamadda la hor keeni waaye waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in aysan aqbalin codsiga xafiiska xeer ilaalinta caddayn la'aan awgeed qofka waa la eeday karaa haddii la eedeeyo waa in lagu helaa caddayman waa la waaye wax caddayman ah dalku u shaqaynayay askari Soomaaliyeed oo ahay waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in xurnimadiisi loo celiyo maxkamaddu waa mahadsanta waxa qareen u ahay eedaysanaha saddexaad mudana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh maadaama asaga uu qiraal yahay war muhiimadda laga raaca waan soo koobaa maadaama asaga uu qirtay falka uu galo maxkamadda horteeda uu ka qirtay markii qodobada eedda loo akhriyo loo soo jeediyey maadaama asaga uu qirtay taas oo ah niyad wanaaggii uu muujiyey oo qiraalka qofku markuu wax qiranayo waa awalu xusni niya niyadda wanaaggeeda meesha ka bilaaban waayo wixii uu sameeyey markay la xumaadaan oo asagu go'aansado inuu waxaas qalad ahaayeen ayuu qiraal samay karaa markii la weydiiyana uu ku sii adkaysto macnaha taasoo tusinaydo in uu macnaha shaki una ka qabin tawbakeenka iyo ka noqoshada iyo ka qoomamaynta wuxuu sameeyey maadaama markii ugu horeyso khalad galay uu yahay maxkamad la soo hor keeno maadaama ninka dhalinyarada ah maxkamadda hadda hor taagan uu yahay maadaama xoogsato uu yahay oo qoys danyar ah uu ka soo jeedo maadaama cadaaladii uusan waqti ka luminin oo wax alla wixii asagu uu ogaay iyo wuxuu sameeyay si toos ah u sheegay taas oo qayb weyn ka noqonayso habsami u socodka cadaaladda qof walba hadii wixii ogtahay ay samayso waa wax walba degdeg ayaa xal looga gaari lahaa maadaama habraaci wax bixinta oo lacagta asaga uu qiraalka uu ka yahay
weli uu socdo laakiin uu dhammaystirmin laakiin rajaynayno inuu dhammaystirmi doono waqti dhow mudane guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanaa in laga khafiifiyo qodobada lagu soo eedeeyey ciqaabta ku qoran in laga khafiifiyo loona oo kale ah qodobka 283 383 496 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed loona fiiriyo qodobka 4tanaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed fakrada koobaad xarafka fa oo sheegayo wax celintii wixii la qaaday oo dibbiga lagu geystay haddii celinteedu ay suurtagal tahay processkeeduna ay socdo ay ka mid tahay asbaabta wax fududayso in maxkamaddu asbaabtaas ay u aragto waxyaa asbaabta fududayso ciqaabta si waafaqsan qodobka 4tanaad fakrada koobaad xarafka ga in maxkamaddu tacsiirtii uga dhigto 5 bilood uu xiraay ay tacsiir uga dhigto si waafaqsan qodobka 109aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed in maxkamaddu ay ku xukunto inta asagoo qiraalka uu ku yahay xorriyadiisana dib u siiso maxkamaddu ay mahadsantahay waxaan qareen u ahay sanadda shanaad Faadumo Cabdi Xasan mudane guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh Faadumo markii eedda loo haysto maxkamaddu u akhrisay waxay ku jawaabtay si waafaqsan 104 fakrada koobaad xarafka e oo ah inay dood sharci ka qabto doodeedana waxay ahayd in Faadumo eedda loo haysto oo ah in koontadeeda la isticmaalay eedeysanayaasha koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afaraad ay u fududeysay ama ay isticmaaleen koontadeeda si ay lacagtaas ula baxaan mudane guddoomiye Faadumo ma inkirsane in koontadeeda lacag ku soo dhacday laakiin mudane guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh Faadumo waxay sheegtay in aysan ogeyn lacagtaas inay ahayd mid sharci darro ah sidaasna ay lacagtaasu akoonkeeda ku soo gashay mudane guddoomiye haddii maxkamaddu u caddeeyo sida Faadumo akoonkeeda uu ku soo gashay lacagtaas waxay tahay lacagtan Faadumo waxaa usoo diray mulki oo ah eedeysanaada 10aad oo ah damaqane mulki iyo Faadumo waxaa ka dhexeeyay xiriir qaraabanimo ka dhexeeyay mudane guddoomiye waxaa ka dhexeeyay xiriir darisnimo ka dhexeeyay taasna waxay keentay in Faadumo ay aaminto mulki sidaasna ay koontadeeda lacag soo dirto waxay u sheegtay mudane guddoomiye sida maxkamadda ka hor sheegtaba in lacagtan uu soo diray macnaha ninka iyada qabo walaalkeeda oo dibad jiro lacag soo diray akoonkeedana uusan qaadin lacagtaas maadaama ay 500 tahay oo EFC 300 qaado sidaa darteedna waxay ka codsatay mudane guddoomiye in lacagtan koontadeeda uu soo shubto oo ay u soo sarifto mudane guddoomiye Faadumo harta akoonkeeda saas oo lacag ku soo gashay marka laga reebo inay lacag soo gashay mudane guddoomiye fal dambiyeed wuxuu ku dhismi karaa macnaha in la caddeeyo maxkamadda loo caddeeyo xafiiska xilaalinta uu caddeeyo in Faadumo ay ogeyd sidoo kalena ay rabtay in ay lacag si sharci darro uga faa'iideysto inay ogeyd lacagta inay sharci darro tahay wuxuu ku dhismi karaa fal dambiyeed in Faadumo ku dhismi karaa mudane guddoomiye maxkamadda looma soo gudbin wax caddaynaya in Faadumo ogeyd baaraha markaa weydiiyey waxaan dhahay goobta eedeysanaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad ay joogeen oo dhibanaha lagu wacay Faadumo ma joogto wuxuu ii caddeeyey wuxuu dhahay ma joogin ma jirtaa cid u sheegtay Faadumo in lacagtaas la soo dhacay ma jiran mudane guddoomiye looma sheegin maxkamadda wax gudbinaya wax sheegaya looma soo gudbin taas waxay muujinaysaa mudane guddoomiye Faadumo inuusan ogaalkeeda ahayn lacagtan inay ahayd lacag sharci darro oo la soo dhacay in koonto adoo og koontadaada in lacag sharci darro ku soo dhacday 3 maalin kadib in banki inta tagtid aad lacag isoo saara waa ogaan kartaa fal dambiyeed lagu qaban karo inuu yahay 16dii ee lacag markii lagu soo shubay 19kii ee waxay tagtay bankiga si lacagta uu soo baxdo taasna waxay caddeynaysaa mudane guddoomiye inaysan ogaalkeeda ahayn qof dambi galay waxa waaye inuu saatirto oo ka dhuunto koontooyinka dadka lacagaha inta badan ku dhacaan way iska xiraan nambaradana way iska tuuraan iyadana niid wanaageeda bankiga tagtay si lacagta u soo bixiso taasna waxay caddeynaysaa mudane guddoomiye inaysan ahayn qof ogaay inuu lacagtan sharci darro tahay sidoo kalena rabay inuu ka faa'iideysto mudane guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh anuu ku dheeraanaynin
iyadoo intaas dhan ay caddahay mudane guddoomiye faadumana aysan ankirsanayn lacag koonto kusoo dhacday laakiin faadumo fal dembiyeed lagu haysto oo keliya uu ku dhismi karo ogaal inay lacagta sharci darre inay ogeyd sidoo kalena inay ka faa'iidaysto taasna wax caddayn oo la xiriirto maxkamadda loo soo gudbin mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaa maxkamadda ku codsanaya in xorriyaddeeda la siiyo maxkamadduna waa mahadsantahay bismillaah mudane guddoomiye garsoorayaal aniga waxaan abukaato u ahay xamdi iyo hani xamdi haddaan ku hormaro waxaa lagu soo eedeeyey qodobka 297 iyo 283 mudane guddoomiye garsoorayaal doorka labadaas qodob ay ku leeyihiin xafiiska xeer ilaalinta ma caddaynin waa bointika koowaad un keliya way iska soo dul saareen haddaan dul istaagno labada qodob nuxur ahaan iyo micno ahaan waxay ka hadlayaan qodobka 297 wuxuu sheegayaa kaalmeyn qof la tuunsan yahay waa hal su'aal ah xamdi may ogeyd lacagahan la soo diraya lacaga la soo dhacay inay yihiin dadka u soo dirayana dad lagu daba jiro oo la tuunsan yahay may ogeyd su-aashu waa maya qodobka marka micnaha guud uu xambaarsan yahay waa qof in la caawiyo inuu ka baxsado baaristii lagu samayn lahaa inuu ka baxsado ama fatishaadii lagu baari lahaa asaga ama gurigiisa ama agabka u haysto lagu baari lahaa inuu ka baxsado in gacan lagu siiyo sidaas darteed xamdi cid ay gacan siisay oo tuunsana ah oo la yaqaano oo iyadu ay ogtahay inuu tuunsana yahay ma jirto waxaa ficnaan lahayd xafiiska xeer ilaalinta inuu soo eedeeyo gaarigii la raacay maqaaxidii wax laga cunay qof walba oo tacaamul transactionka lacagta la leeyahay waa la dhacay ay dhex martay oo dhan inuu soo eedeeyo maxkamadda u keeno haddii ba la isku eedeynayo dukaankaada wax laga gatay qodobka 35 ee dastuurka kumeel gaarka ah xuquuqda eedeysanaha markii laga hadlayo faqradiisa 12 waxay sheegaysaa mas'uul ciqaab waa shakhsi qofna laguma ciqaabi karo qof kale dembi uu asagu galay sidaa darteed xamdi wax dembi ah oo ay gashay oo hadda la leeyahay arrintaasay samaysay ma jirto haddaan u daadego hani mudane guddoomiye garsoore xafiiska xeer ilaalintu asaga ka laabtay aadii u haystay hani uguna cudur daaray inay xaamilo tahay hadda marka horeba qodobada lagu eedeynaya xamdun baa lagu eedeynayay oo inay ama qarisay warbixin dembi ama haddii kale ay gacan siisay oo aanan sidaan hadda aan u sharaxno qodobada ah sidaa darteed mudane guddoomiye garsoore inay maxkamaddu qaadato qodobka 35 ee dastuurka oo ah inaysan waxba dembi gelin beri ay ka yihiin dad kale dhibaato ay geysteen oo dad ay u dhibaateen ayaga inaan loo ciqaabi karin maxkamaddu waa maasanta mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh sida ku cad 163 waa in fal dembiyad dhacaa eedeysan hun yahay kii galay si aan shaki ku jirin oo cad maxkamadda horteeda lama keenin caddeyn ah inay qadro kiiskan ee gacan ku lahayd ee gacansiin ku lahayd mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh qadro waxay ii sheegtay in ayadoo ay lugaheeda maxkamadda ku imaatay haddii ay dembi isku ogtahay ama kiiska dhaca ay wax ku ogtahay ayadoo socoto maxkamadda ma aysan imaan lahayn qadro waxay ii sheegtay shalay markay maxkamadda imaatay in la dhahay markay xogta ay sheegtay in xamdi ay dhahday lacagtan iga xayiran iyo fasax kadibna wiil shirkadda ka shaqeeya ee ku xirtay qadro saas darteedna qadro wiilka is garanayeen oo dhahay lacag $500 hal isiiyo si aan lacagta u fasaxo lacagtii 500 ninkaasaa qaatay lacagtan qadro $1 kama soo gaarin mana aysan qaadanin mana ogeen in lacagtan la soo turufay shaqana kuma aysan lahayn marka qadro wax loo haysto oo eed ah ma jirtaba cid maxkamadda horteeda qadro dhibano u ahna lama keenin oo dhahayso waxay naga turufayso waxay naga dhacday laguma ciqaabi karo fal dembiyad ee ayada gelin sida aan ognahay shareecada islaamka hooyada murdicada ah oo ilmaha nuujinayso bisha ramadaanka waajibka ilaahay waxay jaanis loo siiyay inay iska furi karto marka qadro waxaa ku dul nool naf
naftaasoo haddii quudintaas ay weyso naftaas halis geli karta ama xaalad caafimaad daras oo wajihi karto maxkamadda waxaa ka codsanaya inay u fiiriso hooyadaas nuujinta ku jirto gabagabada maadaama caddeemo aan la horkeenin maxkamadda horteeda xafiiska xeer ilaalinta waxay ku guul dareysatay inay caddeyso in faldambiyad dhacay eedeysanahun yaa kii gala si waafaqsan 110 sidaas darteed maxkamadda waxaa ka codsanaynaa qodobadan soo socda in la diido eedaan aan ku dhisnayn xaqiiqada ah in la aqbalo difaaciyan ku xusan 116 in lagu waayo eedda loo soo jeediyey si waafaqsan 122 ee xeerka habka ciqaabta maxaa ka dalbay maxkamadda maxkamadda sharafta leh waxaan ka dalbanayaa awalan hantidii la iga dhacay oo cadadka aan kuu sheegay ah $10,319 ah iyo 5 bilood iyo 6 habeen oo aan joogay oo hotel aan deganay waliba nin baa ila socday oo aan wada soconay saaxiibkay oo hawshan ila galay hotel aan wada deganin bisha Shabcaan hadda markay bilatay uu iga tagay 2 nin anagoo ah hotel deganayn ma garanaysaa hotel baraka la yiraahdo labadanadaba calaayoom $20 baan cuntadanada iyo ma garanaysaa jiifkanaga $20 bay ahayd lacagna ma ana wadanin oo wixii aan watay waa waxa tagay ma garanaysaa ehel aan halkan la deganaana ma jirin hotelkaasaan deganaa ilaa xalaydii u dambeysay ilaa markaa 16 bisha ahayd wixii waxa ii dheer tristiborkii aan diyaaradaha ku soo raacay iyo ma garanaysaa shaqadii kale ee intaa un maxkamadda aan ku ordahayay aan kolba gaari fuulahay way ii dheertay laakiin taqriiban waxaan ku soo gaabsaday lacag $3,150 ah in oo magdhow ah dhibkii aniga la ii geystay 100 danaan lahaa safar baan ahaa heeraan lahaa waxaa la ii geystay wax ma garanaysaa dhibaato leh laakiin waa adduun iyo xaalkii in lacagta laga dhacay la isiiyo oo maxkamadda sharafta ay iga qaado iyo inay magdhowshaha iyo dhibaatada ay ii geysteen ee kharashaadka iyaga sababkooda ku yimid in la iga qaado maxkamadda ka codsanay deegaanka ka imaatay igu cilmi deegaanka muxuu ahay gobol kililka shanaad gobolka dowlad degmada Wardheer maxaa ka ganacsataa waxaan ka ganacsadaa xoolo dhaqataan asalkayga xoolo dhaqataan markii dadka deegaanka jooga Boosaaso iyo Garowe iyo Gaalkacyo iyo u soo safraan xoolaha markay ka raashinka iyo cunnada iyo waxyaalaha maartay adeega dadku ku nool yahay baa loo doonta xagga lacagahaaga inta xayran hadda waa lagu fasaxa inta kaa maqan go'aanka maxkamadda lagu soo celiyaa dalabka codsiga aad dalbatane waa la tixgeliyaa talada waxaa waaye marka si aysan qarash kugu sii soconin in aad xeeraalyaha aad u qorto ciwaankaaga iyo magacaaga asigana la soo xiriirtaa deegaankaagii iyo reerkiina aad isaga laabataa doolo iyo Wardheer aad isaga laabataa wixii xuquuqdaadina adoo halkaas joogo ayaad xeeraal la soo xiriiri aad ka heli doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo soo waqti kugu dheeraanin hadda qarash kugu socdan oo kugu sii soconin qarashkaaga waxa dhan waa la tixgeli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo codsiga dalabaadkaaga iyo fariis maxkamadda maxaa ka codsanay in xorriyadda dib ii siiso xaqan aan iska bixiyo xaqaa la igu leeyahay inaan iska bixiyo xorriyaddeedana maxkamadda ay dib siiso baa gudoomiye ka codsanaya shariifo maxaa codsanay maxkamadda sharafta leh xuquuqdii aan lahaa oo liiga joojiyay anigoo difaaca jooga maxkamadda waxaan ka codsanayaa xuquuqdii inay ii fasaxdo mudane gudoomiye maxkamadda waxaa ka codsanayaa aniga kiiska aan shuqul ku leena faraa lii soo galiyay waxaa ahay hooyo ilmo korsato ilmo cunug yar naas siistaa in xorriyaddeeda la siiyo rabaan adiga banaan joog ma haysan takimaad shalay laan lii waa imaaday xal waa xirinta la yiraahdo damiina keensada waxaan dalbanaa maadaama aan gabar xaamil ahay ilmo yarna ay u joogaan waxaanan waxba aan ka ogeyn oo lagu qiyaamay in maxkamadda xubnimadeeda dib ay siiso iyadoo mahadsan maxkamadda waxaan ka codsanayaa in xorriyaddeeda la siiyo waxaan dambid ku lahayn dusha laga saarin ada xabsiga dhexmaa jirtaa banaan jooga ahay banaanka joogtaa xataa wiilasha waa ka soo horreeyaan dadka fududeeya ahay ninkayga soo qabtay wiilashaas lama soo qaban leh way dhunteen ninkayga soo qabtay hadda adina xaas mutaa maya ninka way furi xaas ma ihani kulligiina banaanka ka wada maateen miya qof xabsi ka imaa jirtaa maya diriskayga waa weydii kartaa mudane gudoomiye inaan wax shaqo ku lahayn tuugana la shaqayn dirisaa lahayn tuugada lama shaqaysid miya tuugana lama shaqayn mudane gudoomiye ilaahayga og gobolaa la kimaan waxaan shaqo ku malay nimankaane waxaan khiyaanad mudane gudoomiye waa lay khiyaanaane maana ogeyn qof gobolka imaada ahay adi maxaa codsanay mudane gudoomiye waxaa codsanaya maxkamadda sharafta leh inay xurriyadeeda i siiso ayadoo mahadsan